السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما أقيات يوتيوب وان سلامي عشان نعاود كسب سيها سيدا استعمال eyelashes and photoshop and CS6 marka cashirdan waxaa loogu talagalay dadka bilowga ee photoshopka aan hore u isticmaalin inay ka faa'iideystaan marka brush waa kan intuu yaala eyelasheska inshallah bidnillah karim linkiga waxaan soo dhigayaa youtube-ka hoostiisa filimka hoostiisa inshallah bidnillah karim photoshopka ka fur marka waa ujeedaa eyelashkan markaan ka qaado originalka fiirino waad ujeedaa in ay ka qaadan yahay waxyaabo badan ay ka maqayn markaan saarno inay ka qurux badan tahay marka hore marka sidee loo sameeyay marka filimkana ma aan macnaha photoshopka aan page cusub doorano close all lines ka dhano kadibna waxaad imaanaysaa file menu ayaa leedahay open file card ayaa la soo bixaysaa kadibna marka file card imaado double click ayaad ku siisanaysaa marka ku siisatid ba dabcan dadka qaar ma yaqaanin sida brushka loogu shubo brush ayaa soo dooranaysaa meeshan ayaa imaanaysaa kadibna meeshaas ayaad ku dhufanaysaa meeshan haddana ayaa imaanaysaa kaliya ayaad ku siinaysaa waxaa leedahay load brush ayaa leedahay brushkii ayaad ka soo dooranaysaa kadibna waxaa leedahay load brush ayaa leedahay sidaas ayuu brush ugu soo gelinayaa isla markuu brush ku soo geliyaba waxa laga baahan yahay inaad ka dooratid meeshan brushkan isticmaalayo wuxuu yahay 728 noocan ay isticmaalaya kadib waxaan leeyahay meeshan new layer ayaan ka dooranayaa kadibna waxaan isticmaalayaa falaaraha ayaan ka gaabinayaa isla markaan gaabiyo waxaan leeyahay click ayaan hammer ku siinayaa isla markaan click ku siiyo waxa yar ujeedaa inuu wax yar ka dulkacsan yahay waxaan sameeyaa edit menu ayaa tagaya kan waxaan leeyahay free transform ayaa leedahay kadibna wax yar ayaa soo dejinaysaa haddii aad leedahay in mataqaana aad meel badan ka maqayn waxa tagaysaa edit menu haddana transform ayaa leedahay kadibna word ayaa leedahay waa yara xukumi kartaa meesha artid ayaad u leexleexi kartaa kadibna marka artid inaad ka qaado jeegas ayaa meesha ka qaadaysaa kadibna wuu ka baxayaa isla markaan rabnaan ka sameeyno waxa kugu sahlan inaad mid kale soo doorto haddana inaad dhahdo right click dhahdo duplicate ku samaysid layerka kadib marka layerka duplicate ku samaysid okay iska dhahdid waxa laga baahan inaad dhahdo edit ma inaad tagtid transform ayaa leedahay kadib waxaa leedahay flip horizontal kadibna waxaad imaanaysaa meesha ku qoran tahay move ayaa imaanaysaa waad qaadaysaa isla markiiba sidaas ayaad u gelinaysaa isla markiiba kadibna diyaar ayuu ku yahay haddii wax ka qaldan si tartiib ayaad u samaysanaysaa dhimanaan kadibna new layer cusub ayaa haddana dooranaysaa markaad dooratidba waxaad tegaysaa haddana brushka ayaa tegaysaa waxaad soo dooranaysaa meel ay ku qoran tahay noocyada hadda isticmaalayo waa 504 ayaan isticmaalaynaa kadibna marka 504 isticmaashidba waad yareysanaysaa markaad yareysatidba intaad ka dhigatid sorry waxay imaanaysaa layerka si fiican imaanay kadibna waa yareysan intaad ratid kadib marka intaad yareysidba waxaa leedahay hamar aan dib u yareey haddana meesha waxaan ku siinayaa click ayaa hamar ku siinayaa isla markaan click ku siiyaba waxaan sameynayaa haddana kan ayaan soo jeediyaa duplicate ayaan ku sameynayaa haddana waxaan tegayaa edit menu transform kadibna flip ayaan leeyahay kadibna waxaan leeyahay move tool ayaan leeyahay kadibna waa qaadayaa sidaas ayaad iigu sahlan intii aan sameyn lahay hadda kana u jeedaa marka meelo yar ayuu ka yara maqan yahay waxaan sameynayaa marka drive ku soo sameeyo waxaan sameynayaa edit menu transform kadibna word ayaan leeyahay kadibna waan yara soo qaadayaa waa ku aadinayaa si yar saxsan kadibna waa inta sukar jeeg ayaan ka qaadayaa markii aan intaas aan layer ka sameeyay haddii aan layer rabo inaan isku daro midka kore ayaan tagayaa haddana kan hoose ayaan waxaan ku leeyahay shiftiga ayaan qabanayaa kadibna click ayaan ku siinayaa kadibna waxaan leeyahay right click merge layer ayaan leeyahay kulli uu isku darayaa marka hadda jeeg ka qaadno waxaad u jeedaa in uu ka maqan yihiin soniya eyelashes ka maqan yihiin baaraha
kadibna haddii la saaro ay leeyihiin waa kasaa. marka insha allah biidnillahi kariim inay ka faa'iideysan doontaan ayaa rajaynayaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh, wajazaakum allahu